wadooyinku waa kaabayaasha dhaqaalaha isla markaasina bulshada u sahashay isku socodka dadka iyo gaadiidka. Magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxay sanadii ugu dambeysay ku tallaabsatay horumar kala duwan, waxaana bulshada magaalada Boorama mar uu rajeynayaan inay helaan wadooyin casri ah oo la jaan qaadaya wadooyinka laga hirgeliyay magaalooyinka Berbera iyo Gabiley. waxaana waqti xaadirka wadooyinka magaalada Boorama ay noqdeen kuwo burbur oo isku bedelay boholo, waxaana gaadiidleydan isticmaasho wadooyinka magaalada Boorama oo la hadlay telefishinka codka bariga Afrika cabasho ballaaran ay ka muujiyeen dowladda hoose ee degmada Boorama oo ay sheegeen inay ku fashilantay inay dayactir ku sameyso wadooyinka magaalada Boorama. saaka dariiqan magaalada Boorama gaar ahaan gaadiidka bajaajta dariiq nool ma jiro, reflowd baan marnaa waad aragtay ninkoos xaafada marka fashil aad ka muuqda farjeebla waxa qotay ma jirto. maalintii uu lahaa ku soo noqday xilka ee labaad wuxuu nagu yiri waxa weyn baa ii kordhay, wixii weynaaye u kordhay maanu arag waxa uu ka qabtay. waad aragtaan saaka magaalada jawi suu yahay, waxaad moodataan meel walba inay berkad ka qoontay berkadii inay ka qoontaad moodataan saaka sawraantii muuqaalkan wada arki doonta. waxaan ahay gaadiidka bajaajleyda ayaan ka tirsanahay oo garool baan ahay. marka waxaan leeyahay dawladda hoose shaqadeedii way gabtay baan leeyahay, sababtoo ah nin bixinaya cashuur, nin bixinaya ma garanaysaa sanad cashuuraad bixinaya dilaa midin loo hagaajiyo xaq buu leeyahay. waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliland ayaan fariin u dirayaa ee Muuse Bixi Cabdi aan fariin u dirayaa. waxaan leeyahay Muusow gobolkan ciidii aad soo xil saartay eed ma garanaysaa shaqadeedan u eegmatay way gabtaan leh loo yimid waayo wama aragba wali wax dhibna la qaybsada amba sheega wadada dhibka ka jira. anagu xil walba waan marnaa oon dhibaato ka weyn oo wadada ka xun ma jirto. wada walba saaba u jajabanta meel ay biyo fadhiyaan, meel goda ifrisingi maalin walba waxaan laga qaadaa 2,000 cashuura. xitaa haddaan nidhaahno war lawrka ha soo rogo ee iga sug kaama sugaya askari baa lagu dulkeena waa lagu xidhayaa. hal la xidhma xume laakiin haddana markii wixii cashuuran laga qaado ma xumo, laakiin waa in waxna loogu qabtaa wadooyinka la hagaajiyaa. horta waad aragtaan horta indhihiina waad ku aragtaan dhibaatada ay jirta wadalaanta. horta aad bay magaalada Boorama wadada aad bay iska liidataa. wadooyinkana marka horta waxa aanu umaleynaya in horta khibrad yaraan marka hore oo laamiga aqoon badan u lahayn oo bilowgii ay hayd iyo tayada samaynta marka hore la sameeyo tayadeedu ay yar hooseyso wadada. horta dawladda hoose oo dhan sideedaba waa iska yar hawsheedu waa tabcaan. inagu ahaana imika aynu bilownahay oo laamida marka hore wadooyinka rafay badnaayn hase haddii horta dawladda hoose shaqadeedu aad bay hooseysaa, shaqadeedu aad bay hooseysaa oo wadooyinkii cid ba loo sheegi maayo la arkaa oo aragtaan. dhinaca kale haddaan si kale kuugu dhigo waxaa tiin gaadiidka xamuulka qaada inta badan ininkaa inilii aaneeya wadadan wadooyinka magaalada inaad burburisaan eedda inilii jeedina maxaad kale wado gaari burburi karaa ma jiro. wadadu hadday wadadu wada caadi tahay wadooyin boqol wadaan maray waayo gaadiidka ka awood badan hore ka tan badan baa wadooyinka mar caadiga wada marka hore liidatay un baa gaari wax yeeli karaa, laakiin waxa gaariga dib u gaadiidku geysadaan wadadu geystaan ma jirto. muhiimaddu waxay tahay marka hore in lagu xisaabtamo gaadiidka meesha maraya oo marka wadada la sameeyo tayadeedu waxay ku xidhan. si kastaba haddee waxaa arrintani mas-uuliyadda koowaad iska leh dowladda hoose ee degmada Boorama oo horkacayo maayirka magaalada Boorama, waxaana uu horumarka degmada uu maayir xaddi uu kaga mashquulay ka hadalka arrimaha siyaasadda. bulshada ku dhaqan magaalada Boorama ayaa dareenkooda ku muujiyay murti macnaheedu ay tahay inay kala dhantaalaan dhulka horumarkiisiyo dhismahaaya hawlaha. inay kala dhantaalaan dhulka horumarkiisiyo dhismahaaya hawlaha. Cabdirasaaq Cumar Macadawliyo, telefishinka codka bariga Afrika, Boorama.